والدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لي فضل. صفيه وخليله ترك لنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وسلك السعداء من أمته على نهجه القويم، وضل عنه الأشقياء. فصلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. walaalayaal, maanta oo ah maalin Isniin ah, bisha Shawaal ay tahay 9 sanadkii hijriga 1430 ayaa waxaan rabnaa insha Allahu tacaala haddii Ilaahay ina waafajiyo inaan halkan ka bilowno kitaabkan la yidhaaho alhadyu alwaadix fi ldabbi can muctaqadi salafi saalix. waddanka aanu ku aqrinayno oo hadda aanu joognana waa yemen almubaaraka. yacni yemen waa waddanka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa u duceeyey oo haddana ammaanay aliimaanu yamaani walxikmatu yamaaniya. iimaanku wuxuu jiraa dhinaca yeman, xikmadduna waxay jirtaa dhinaca yeman, ayuu yihi nabigeena sala allahu wasalam calayh. marka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala naga mahad celinaynaa in yani duruustan caqiidada ah aanu ku akrisanayno. yani beledkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay iimaanka iyo xikmadda uu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam. kitaabkan marka alhadyu alwaadix can muctaqadi salafi saalix, yani magaciisa haddii afka soomaaliga lagu qeexo macnihiisu wuxuu noqon waa hanuunkii caddaa oo lagu difaacayo caqiidadii salafkii wanaagsanaa. kitaabkaas yani addoonkan faqiirka ah ee ilaahay raxmadiisa iyo cafigiisa u baahan hadda idin hor fadhiya abubakar xasan maalin ayaa isku soo araabiyey. wax aniga ra'yigana kuma lihi haba yaraatee kitaabkan, laakiin culimmada hadalkoodii unbaan soo arooriyey. wixii culimmadu ay ka qoreen caqiidada salafu hadihi lumma almubaaraka, ummaddan yani la barakeeyey ummaddii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, culimmadoodii salafka ahaa wixii ay ka yidhaaheen caqiidada un baan soo arooriyey. wax ra'yi ah anugu kuma lihi kitaabkan, ilaa nidaamin iyo tandiim iyo tashkiilin iyo tarqiib un baan ku leeyahay. marka si ammaanada aan u guto ammaana cilmiya, waxaan caddeeyey hadalka yani kitaabka aan ka soo qaaday magaciisa iyo juskiisa iyo raqamka ama safxada yani masaladan aan ka soo guuriyey ayaan caddeeyey, si hadhow dadka quraada ee akhrisanaya ay ugu fududaato in ay dib ugu laabtaan maraajicda yani aan ka soo guuriyey. kitaabka marka waxaan isku aadiyey oon qoray taariikhda hijrigu markuu ahaa 1425 bishii Rajab, oo muddo hadda laga joogo 5 sano ayaa qoraalkiisu ahaa. marka kitaabkan yani aan qoray oo dhamaaday. marka kitaabkan isla markii yani qoraalkiisu uu dhamaaday ilaahay uu waafajiyey subxaanahu watacaala, waxaan ku aqriyey magaalada Muqdisho حرسها الله سبحانه وتعالى وأعاد عليها الأمن والاستقرار التام. marka
runtii waxaa ilaahay mahadiis ah in markaas ay dhegaysanayeen dad yacni ilaa 400 yacni ilaa 500 isugu jiray cadadkooda oo qof ayaa dhegaysanayay xilligii muqdisho aan ku aqrinayay kitaabkan. yacni markaasna kitaabkan aruurintiisa iyo inaan intaasoo yacni juhdiga ku bixiyo waxaa kalifay waddanka Soomaaliya. yacni waxaad ogtihiin intii diintu aysan soo gaarin almadiina almunawara ayaa islaamku Soomaaliya uu soo gaaray biaydi almuhaajiriina ila alxabasha ayuu ku soo gaaray. asxaabtii xabashada usoo hijrootay juhdigoodii ayaa islaamku Soomaaliya kusoo gaaray. walidaalika culimadii ahlu sunnaha juhdi badan ay Soomaaliya ay ku bixiyeen jazaahum allahu cana khayran jaziila wa cala almuslimiin. muslimiinta iyo annaga xaggeena waa ilaahay culimada abaal weyn ilaahayna ka abaalmariyo juhuud badan ayay ku bixiyeen. yacni ilaa qof axad gaala ay ka dhowreen waddanka Soomaaliya min sharqihi ilaa qarbihi kulli. yani waa waddanka caalamka kali ah la odhan karo 100% oo muslimiin 100%. ما يوجد فيه مشرك ولا كافر ولا شيعي ولا جهمي ولا مرجي لقمه هيجي الموضوع. وده سلاس جهود علماء اللي وصل بحيان أيها ضدكي رحلات كسمية وضل مرينا الدنيا أهان جري سلا ابن بطوطة الدنيا يعني أن أنت بدل نقوم مريض وتجي قرني تضوادي قرني سيدلات أنت ولا حيسي أي Soomaaliya oo rixladiisa uu ku maray kitaab uu ka qoray rixlada ibn Battuta yani waa muddo hadda laga joogo ku dhawaad 800 oo sano. wuxuu sheegay ibn Battuta inuu dad culimo ah ku arkay Soomaaliya oo balad diinta ugu akhrisanayo oo maaragtay ma sha Allah yani aathar diineed ay ka muuqato ay sheegay. wadaalika waddanka sidaas ayuu ahaan jiray oo culimadii ahlu sunnuhu juhuud badan ay ku bixiyeen. muddo hadda laga joogo yacni 30 sano ayaa waxaa soo galay caqaa'id aan kitaabka iyo sunnaha yacni khilaafsan oo log aan ku lahayn oo yacni runtii dad ahlulbidaca ama ka soo qaatay mubtadicada aaraa ay waddankii ku faafiyeen caqaa'id khilaafsan kitaabka iyo sunnihii oo caqiidooyinkaas oo runtii u muuqda caqiidooyin mulafaqa min aljahmiya walkaraamiya wama ashbahahuma min alfiraq addaalla. jahmiye iyo karaamiye iyo laga soo arooriyey khawaarij iyo muctasile iyo laga soo arooriyey ayaa waddankii yacni lagu faafiyey. waxaa dhacay marka waxyaalo cajiib leh in ilaahay subxaanahu watacaala loo aaneeyey wax ilaahay subxaanahu watacaala uusan xaq u lahayn oo mustaxiilka ah oo ilaahay aan u habboonayn in lagu sheegay oo ay ka mid tahay ilaahay jihuu jiraa almakaan alcadami meel layidhaahu ilaahay degan yahay. yani nazl allaha tacaala mantiqa samowha almakaan alcadami. waxay dejiyeen mandiqan ama goob ay ugu magac dareen makaan cadam la yidhaahu jooga oo carshiga meel ka koraysa oo magaceeda la yidhaho almantiqa alcadamiya almakaan alcadami oo makhluuq uusan joogin oo cadam la yidhaha halkaasay dejiyeen. waxay yani ilaahay u aaneeyeen subxaanahu watacaala jiho ayay ilaahay u aaneeyeen subxaanahu watacaala. waxay u nisbeeyeen alfaadii qur-aanka ku soo aroortay nusuustii ayay jeebkooda kuga dareen oo ahlu sunnuhu marka ay culuwiga ilaahay subxaanahu watacaala ahlu sunnuhu way qarsan yihiin laakiin waxay ku gaabsanayaan inta qur-aanka iyo sunnaha ku soo arooray. araxmaanu cala alcarshi istawa istiwaa'an yaliiqu bijalaali. waa culuw ilaahay yani u habboon subxaanahu watacaala. ayagu waxay ku dareen alfaad culuwigan in jiha loola jeedo yani culuwi daatiya inuu yahay almakaan alcadami inuu yahay erayo nusuustii ka baxsan kitaabkii sunnihii. markii
erayadaas lagu soo daray diintii ayaa haddana erayadaas qofkii dhihi waaye oo ku dhawaaqi waaye lagu tabdiicnin xugmiye oo la yidhi waa mubtadic wixii erayadaas nala dhihi waaye nala qaadan waaye markaasaa culimadii ashaacirada ahayd oo diinta usoo khidmaysay ahlu sunnaha ahaa oo axaadiista iyo usuulu fiqhiga iyo tafsiirka iyo luqada iyo naxwaha intaba ummadda soo gaarsiiyey oo makaatibta dhan yani ay ka buuxaan mu'alafaadkoodii oo adduunka dhan diinta ku faafiyey ayaa maaragtahay la aflagaadeeyey. sidaas awgeed markii aan arkay dhibaatada reerka inay gaartay ayaan soo arooriyey hadalkii culimmadu ay ka qoreen caqiidada oo kitaabkan aan ku soo arooriyey alhadi lwaadix fi dabri can muctaqadi salafi saalix. walilaahi alxamdu ilaahuma hadda iskale kitaabku yani runtii saameyn weyn ayuu ku yeeshay bulshada soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho. ilaahayna subxaanahu watacaala lagu faafiyey oo yani internetyadana waa lagu faafiyey, anigana qur-aan ayaan ku faafiyey ilaa wax ka badan 4,000 oo nusqo ayaa laga daawacay kitaabka muqdisho gudaheeda lagu daawacay. marka safarkaygan hadda aan ku imid yemen ayaa runtii culimo yani waxaa sabab u ahaa kitaabkan dalabkiisa kuliyatu shariica jaamicat alxaqaaf ka dhigata ee iga dalbadeen bal inaan maaragtaay mar kale aan kitaabka aqriyo oo weliba yani maqal iyo muuqaal laga duubo si nafcigiisu uu u faafo oo ummaddana ay ku nafciyaan. marka ujeedada waxaa weeye waa in nabigana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam addiinu annasiixa. qulnaa liman qaala lilahi walikitaabi lilahi walirasuulih walikitaabi waliaimati lmuslimiin. diinteena dhan waa nasiix u yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka qofkii waxyaalahaas kitaabkii sunnaha lagu soo daray oo caqiido looga dhigay awel ku khaldannay ayaan waxaan uga naseexaynaynaa in hadalladan yani culimadan ka soo aroorinay salafka kutubtoodii arqaamtoodii kulli aan sheegnay inuu qofku ku qanco una kasoo tanaasulo yani wixii lagu marin habaabiyey oo caqiidadii xumayda dibna uu ugu soo laabto caqiidadii ahlusunna waljamaaca si isaguna uu ajir u helo inaguna aanu ajir aanu uga helno insha allahu tacaala. waxa weeye qofka in xaqa haddii loo sheego hadduusan qaadan xataa qofka xaqa sheegay isagu ajir u leeyahy oo maajuur. walidalika yani ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala dadka waxaan rususha ugu soo dirnay rusulan mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja. rususha waxaan dadka ugu soo dirnay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja, dadku inaysan ilaahay xujo ku yeelan oo aysan dhan ilaahu maxaad wax noogu soo diri weysay diinta noo sheegay. marka si dadkaas xujadaas aysan ilaahay ugu yeelan ayaan rusul usoo diray si aysan u dhihin maa jaa-ana min bashiirin walaa nadiir, si aysan u dhihin ayaa rususha loogu soo diray. walidalika xaqana waxaa loo caddeeyaa liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina. qofkii halaagsamaya isagoo xaqii loo caddeeyey ha baadiyo, kii hanuunahayana isagoo xaqii loo caddeeyey ha hanuun. ujeedada xaqa loo caddaynayo waa intaas wey. waxaana dhici karta qofka isagoo xaqii loo sheegay oo ogaaday yani liasbaabi ma inuu xaqii u hogaansami waayo way dhici karta. qur-aanka ilahi uu ku sheegay subxaanahu watacaala dad badan oo xaqii og haddana aanu hogaansami. yani 3 maado ayaa keeni karta qofka inuu xaqa u hogaansami waayo. awalan waxaa weye yani alricaaya calaa zacaamatihi fii qowmihi, qofku inuu is leeyahay ku dadaalo yani madaxtinimada bulshada ama ururkaaga maqaamka aad ka taagan tahay ku dadaal. yani alricaaya cala zacaama fii qowmihi, inuu is leeyahay markaas haddii yani xaqan aada raacdo yani ururkan jagada ama mansilada hadda aad ka taagan tahay waad ka dhacaysa, inuu is leeyahay oo zacaamadiisa uu ilaashanayo. waa midda suurat lbaqara qolada ilahi uu ku sheegay aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa
وهم يعلمون. إلهي يقول لكم كتابك المسلمين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. النبي يقول يقانا سيد عرورته يقانا وكذا. ده عرورته هذه قبل شيء عرورته كلمة كذا قسمها. ومدرس يقول كي الله مكان الله بيسكن القفل بعرورتي سكما قسمها يعني. سيدها سوى كان يحقق قرنا يعني إلهي سبحانه وتعالى. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فيبقوا الحق الأب أي قرنا. لكن nimankaas mufasiriintana waxay ku fasireen ahaayeen yani kaanuu yaxrisuuna calaa zacaanatihim wa calaa ri'aasatihim fii mujtamacihim mujtamacooda madaxtinimada ay ku haystaan ay ilaashanayeen sidaasay nabigu ugu hogaansami waayeen sala allahu salam caleyh oo xaqa yadiin ثانيا qodobka labaad ee qofka ku kalifaya inuu xaqa u hogaansami waayo وحول حب المادة والدنيا قفك مادة يهنتي إنه سليه بادر كما تكوهيس وهذه حقا عقالته وسيل وسوي سليه مادة هني بيصير هذا هيسته هنتي هذا هيسته يعني راتبه الشهرية هذا هيسته ما هي يصير سليه هذه يعني حقا أدوه كاسيت وذراعي إيه نفتي القرادس سورة البقرة إلهي بكو عدي ومادة جعيل فيه وحقك عيدا إلهي يقول سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وحا عذاب أسقنا لي وخسارة يقب وكدعها قال إيقو قعنت الكتاب قرآن ويقسوا الجيدان كتاب القرآن ثم يقولون هذا من عند الله مركز إليه كتاب كان عن قرني وكي إلهي سوء تجي قرآن كان اسكدافة كان عن قرني قرآن كسحن ساسي جري والعياذ بالله إلهي يقول مركز محا هدفك مكلفة ويؤجيه ليشتروا به ثمنا قليلا وحيث أولي إلى يانا لله العاقل في إبسلام حب المادة والدنيا لا تدرس معك يا الدين هي مكلفة يعني إلهي كبير أمرتها فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إلهي يقول خسارة يقدم يحلاك قسم هذا حق عنه ذا يكون مرن آخر ولا عطاوه وويل لهم مما يكسبون وحي شقيستين وعكت شقيستين وقالوا على الله إذا كاسنا والأسباب يعني الأسباب التي والسبب الثاني الذي يسد المرأة عن الحق وقفك حقك الجيدية. ثالثا طيب سد حب حولي والشيطان الشيطان أقر حيا قفك وحن وهيسته إن الحق به أتصل تزيين الشيطان وتسويله للباطل شيطان كي أقرحية باطل كأو هيست أو إسلوبيني هاي وإسلوبيني هاي أديك على حق تاجن كتنازل وضدك كلام أبو أركاهي وحق هيست إن أهل الباطل هو أركاهي يسجل أو يسوء أركاهي إنه أهل الحق ولذا اسمه وقوة إلهي القرآن كشاهي في سورة فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إلهي يقول سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا والكور القفك عمل كيسيحنا لو قرحيه فرآه حسنا وعمل كيسيحنا وأركي إن ونكسيه سوى عقيدة موتى يسوى إله بالنسبة لنا يوحنا إله وهبونين أيوه بليه أنا منهج كسلف الكتابين تلك كانوا خرافيين وأهل باطل والشركيات السماوية وسلفي عليه يتزين بباطله
taasi marka iyaduna waa qodobka saddexaad oo qofka yani tasyiin baatil tasyiin shaytaan libaatilihi uu qurxiyo xaqa yani ka reebi karta. walidalika nabigeena sala allahu wasalam caleyh dacwaadkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba. ilahu xaqa noo tus inuu xaq yahay, oo markaan inuu xaq yahay noo tustana inaan raacno xaqii na tus haddana. wa arina albaatila baatila baatilkana inuu baatil yahay ilahu noo tus ayuu dhihi jiray nabiga alay slat slam. leanna dad badanaa baatilkii inuu xaq yahay loo tus shaydaanka u tus. ولذلك هذه الأسباب الثلاثة هي التي تسد الناس عن الحق. وقضبضة سدح على قضبضة يعني تذكر الدين هي إن أي راعى حق وحق أيها كاسنا. ولذلك مركع سنة أخي دانا إن شاء الله تعالى يعني عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والمأتوردية waxay qabaan nusuusta siday ku soo aroortay inuu tahay waxaan ilaaha jiha jira iyo ilaaha makaan degan iyo waa wixii karaamiyada iyo ay ku fidnoodeen iyo jahmiyada ay ku fidnoodeen ayaa ahlu sunnaha waxay qabaan cirka iyo dhulkan intaan la abuurin oo makaanka aan la abuurin oo waktiga aan la abuurin sidee ilaahay ahaa subxaana wa tacaala soo ma jiri jiri siduu ahaayo haddaray qabla khalqi lmakaan laa carshi walaa kursi intuu jiri siduu ahaa ayuu haddana yahay xilligaas intuusan makaanka iyo carshiga iyo cirka iyo dhulka abuurin bal kaana yaxtaaj ilaa makaan makaan u baahna bacda khalqi lmakaanna lam yaxtaaj ilaa makaan markaankii markuu abuurayna uma baahna haddana sidii uma baahda u yahay alla subxaana wa tacala wadiisa yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alxamiid. dadka idinkaa fuqaraha lilahi lakin ila waa hani hani can kulli shay. marka aan arki doonaa in sha allahu tacaala. bismi illahi الرحمن الرحيم الحمد لله الواسع الفضل والجود الذي خضعت له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تنزه عن الأنداد والأركان والآلات لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان خلق العرش إلهاما بقدرته لا مكان لذاته قد كان ولا مكان هو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون ذخرا لنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه الكرام أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي أي أسوله إله المهد اسكره الله سؤال الواسع الفضل فضل يسوء بالله إلهي فضل يسوء بالله والجود ديقسن مديسنا بالله إلهي سبحانه وتعالى وأهل ديقسيا يعطي الجزيل على القليل يعني وحيرت سمينة عامية markaas waxweyn kaaga abaalmarin waxweyn ayuu kaaga abaalmarin subxaana wa tacaala. yani fiiri adiga waxaa dhici karta qofka ugu badan waxaa dhici karta 80 sano ama 70 sano inuu cibaadaysto. cibaadadii 70 sano markaad ugu badato aada cibaadaysanaysid ee abaalmarinteeda waxay noqonay xayaata tayiba abadiya raaxa abadiya noqonay weliga الجد الراحة النعيم كل ما تقول. يعني كان تعبد الله أيام قلائل وجزاك الله سبحانه وتعالى حياة أبدية لا تنقطع. لأنه قال نور ولي يعني كم العلم والنعمة إلهي مكان يغلي سوء البلد الذي الله سوى خضعت له الله يقول قاسمين السماوات كسوء السبعة ضوء والأرض قلوب نقوله قاسمين
waman duulna ay u hoggaansameen duulkaasoo fiihinna samaawaadka ardada ku dhex jira xirkan iyo dhulkan iyo waxa ku dhex jira oo dhan ilahay u hoggaansamay yanqaaduuna liamri illah amarka ilaahay u hoggaansamaya yudiicuuna allaha subxaanahu watacaala fima amarahu wanahaa wuxuu ka reebo samey xirkan haddii ilaahay amar uu siiyo uu yidhaaho meesha yani baaba oo hal ka zul waa zuulaya dhulkan hadduu ilahay yihi subxaanahu watacaala gilgilo oo gariir ummaddan yani la gilgilo oo ummaddan yani halaag waa qaadanaya amar samaawaadka iyo ardada waxa dhan waxa ku dhex jira taxta amri illahi ku shaqeynaya subxaanahu watacaala inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakun hadduu shay rabo ilahay uu sameeyo ahaaw ayuu leeyahay tanazaha ilaahay wuxuu ka nasahnaaday uu ka fogaaday can ilandaad waxyaala ilahay la fil ah andaad bimacna shariik waa jamcu niddin ند أنداد الوجبي ند بمعنى شريك وحلا يشرك كلا إذكار يكون كان في ألوهيته وصفاته وأفعاله وذاته وحشرك كلا بجد صفات الله وحشرك كلا بجد أفعاله وحشرك كلا بجد ذاته وحشرك كلا بجد إله سبحانه وتعالى وألا كلية وأن أباه شيء والأركان حبنه أي الله كفر قالوا كان زاهين أنه حلنا مخلوق لنا حبنه مرحا لنا لقان لنا عران لنا كعنان لنا أفان لنا إنضان لنا إله حسب الله سبحانه وتعالى حبنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني وح إلهي لم يدمجه وكل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك وحي قلبي وكسر على هذا الاستلاء إلهي اتصال بهذا